mas-uuliyiinteedii nahay ilaahay waa nagula xisaabtami doonaa berri maalinka qiyaamaha waxaana lagula xisaabtami doonaa sidaan cadaalad ugu samaynay iyo waxa aan u jidaynay in lagu maamulo oo lagu xukmiyo oo lagu kala saaro waxaan nahay dad islaam ah waxaan ognahay annagu ismana abuurin adduunkaanna isma keenin adduunkaanna ma samaysan ilaahay abuuray adduunkan annagana na abuuray oo aan addoomihiisa ahayn waajibaad cadcad ayuuna siiyey kitaabka qur-aanka ayay ku qoran yihiin cid ay shaki uga jiraanna ma laha balse ayadoo xaqiiqda dhabta asaa loo ogyahay qof walbana wuu ogyahay in janno iyo naar inay jiraan qof walbana uu ogyahay in la xisaabinayo inuu haddana waajibaadkii saarnaa inuu ka leexdo ama iska indha tiraaho waa u doqonnimo xaqiiqdu waxay tahay haddaan muddo mugdi ku soconnay waxaan rabnaa maanta inaan ka baxno mugdiga haddaan ka jiifannay waajibkiina saarnaa waxaan rabnaa maanta inaan waajibkaa gudanno ilaahayna markhaati uga dhigno haddaan aniga mas-uulkeedii ahay ummaddan waxa maanta aan idin hor keennay waxa waaye culimmadii maxkamadda islaamiga ee degmada beledweyne iyo kuwii racfaanka maxkamaddu waa furan tahay saaca wixii ka dambeeyana ummaddan waxaa lagu dhaqayaa lagu kala saarayaa lagu kala xugminayaa xaqooda lagu kala siinayaa shareecada islaamka waxaan rabaa marka waa ognahay degaankeenna dhibka ka jira waa ognahay ummaddan dhibka ay isku hayso waa ognahay dulmiga ka dhaca waa ognahay inta marka ayaga wax laga hadleeyo ayaga sharciga gacantooda ku fushada ama soo qabsada qofkii ama soo xirta ama qori inta qaata dila waxaan rabaa dhagihiinna inaad si fiican u furtaan mar haddaan maxkamad islaamiya halkaa furnay cid aan uga leexan doonno ku dhaqanka shareecada islaamka ma jirto qofkii xaqa ummaddaa wax dulmiga u geysta qofkii dulmi ka shaqeeya qofkii hanti uusan lahayn qaata qofkii qof dila maxkamaddaasaa la hor keenaya waxaan rabnaa ummaddan inay nabad ku noolaato inay cadaalad hesho ayaan rabnaa waan ogahay cadaaladdu intaa way ka sii badan tahay cadaaladdu waxay ku jirtaa wax walba cadaaladda ilmaha aad dhashaa lagaa rabaa inaad cadaalad u samayso xaaskaagaa lagaa rabaa inaad cadaalad u samayso ummadda aad mas-uul ka tahay lagaa rabaa inaad cadaalad u samayso cadaaladdu waa shaqo bixinta cadaaladdu waa horumarinta bulshooyinka cadaaladdu waa qandaraas bixinta meel walbay gelaysaa laakiin tiirka ugu horeeya wuxuu yahay garsoorka oo ah maxkamaddii haddii aniga dhib uu isoo gaaro xaggeen aadaya maxaase laygu xugminayaa walaalayaal annagu haddaan nahay dad islaama waddo kale nooma furna waxaa la ysku dayayaa inna la marin habaabiyo inna la yidhaahdo wax ka casrisan shareecadan islaamka ayaa jira diinta ugu casrisan diinta islaamka waa diin ka dambaysa miyaa jirta oo timid waa maya nebi ka dambeeyey miyaa jira nebi maxamed calayh salaatu wasalaam waa maya diinta ugu casriyaysanaydaan wadannaa kuwa aanan haysanna ama aanan ku dhaqmin shareecada islaamkana waa kuwa aanan soo gaarin oo jaahiliin ah
ma aha inay dhinaca kala tahay annagii islaamka ahaynoo diintii ugu dambaysay haysannay ayaa waxaa la rabaa in la yidhaahdo nala fahamsiiyo inay annaga waxaan ku dhaqmaynaa wax casru jaahiliya yihiinoo wax ka casrisan inay jiraan waa un miiskiiyo dabada un loo rogay waa diinta islaamka ugu casrisan diimaha caalamka ka jira shareecada islaamkaana ah shareecada ugu casrisan waxaanan kitaabka ilaahay ku qornayna waa wax kama jiraan waxaan rabaa marka waxaa la sugaysa waddo dheer oo ah hirgelinta shareecada islaamka waxayna ka bilaabanaysaa xafiiska maxkamadda way si socon doontaa waxay gaari doontaa hadduu ilaahay yidhaah xuduudaha dowlad goboleedkaana oo dhan waxay tegi doontaa ay degaankooda ugu tegi doontaa tuulada iyo ninka geela raacda iyo ninka beerta haysta ee beer qodotada ah waxaan rabnaa maxkamadda wixii ashkata ah wixii dhib ah wixii aad kala qabtaan maxkamadda in lala hortago ciddii maxkamadda is hortaagta waxaan ka yeelaynaa inta shareecada islaamka noo bannaynaysaan ka yeelaynaa ciddii is hortaagta maxkamadda islaamiga ah waxa shareecada islaamku bannaynayso ayaanu ka yeelaynaa waxaa la diyaariyey ciidamo isku dhaf ah oo isugu jira qaybaha ciidamadu ka kooban yihiin oo saakay isku dhafkoodii la dhammaystiray kuwa oo fulin doona awaamirta maxkamadda ka soo baxa waxay fulin doonaan wixii maxkamadda ciddii ay tiraahdo maxkamadda ha la hor keeno meeshay doontaa joogtay waa doonayaan waxaan rabaa inta aanan maxkamadda lagaaga yeerin xaq aad og tahay in lagugu dacwaysan doono hadduu jiro maxkamadda iska keen hadday jirto arrin taagan oo u baahan in wax laga qabto dhab ah maxkamadda ka soo diiwaangeli qofkii sharciga gacantiisa ku fushada allaahuma ilaahay ha noqdo adoo aabba ah wiilkaaga curadka ahay nin gacantiisa ku dilay adigu ma dili kartid qasqaas baad leedahay adiga go'aan inta qaadato adna toorre inta qaadato inaad marisaa xaq u malihid ayadoo aadan maxkamaddii aadan imaan ayadoo qofka aanan maxkamaddii iyo shareecada islaamka la soo hor istaajin adigu inta baxdo tuuladiisa iyo wiilal inta aad wadato inaad ku weerarto adna waa soo dilayaa aad tiraahdo waa maya maxkamad ayaa taagan ayada ayaa fulinaysa ayada ayaa kuu soo qabanaysa ayada ayaa ku hor keenaysa si aad go'aan u qaadato hase ahaatee haddaad tiraahdo maxkamaddii waa dhinac maray laakiin diintayda ii fasaxaysa raalli aad ahaanaysa adigu shacabaad tahay adigu maxkamaddii maahay adiga waxaad xaq u leedahay in cadaalad lagu fale aniga naftayda inta baxa wax kala xukminaya ma dhihi kartid hortiinna waxa ku dhaartay culimo ayay ahaayeen culimmada maxkamadda joogto nidaamka dawliga ah ayaa lagu dhaqmayaa waxaa intaa dheer oo rabaa inaan idin raaciyo ilaahay oo markhaati ka aho aniga inta maxkamadda faragelin ku sameeyo qofka aan u jeclahay cadaaladda in laga leexiyo si kale loo sameeyo ma dhici doonto garsoorayaasha maxkamaddan waxaan rabaa inay soo xiraan qofkii soo farageliya maxkamadda maxkamaddu waxay u madax bannaan tahay fulinta shareecada islaamka iyo u garsooridda ayada ciddii wax ka qabtaa raacfaanay u gudbisan kartaa
laakiin hebel oo dambi la ogyahay inuu sameeyo hal daayo hal laga dhaafo ma dhici doonta cidii isku daydana waa cid rabta inay qarribto shariicada islaamka iyo maxkamadda waxay la mid tahay cid rabta inay laaluushto maxkamadda laaluushku waa xaaraan soo maaha laaluushku maadi kaliya maaha marka recommendationka waxa la yiraahdo oo asaan ii samay laaluushu la mid yahay waayo qofka caadiga ah oo shacabka ah saan ii samay kuma dhihi karo waxaan rabaa dadka magaaladan ku nool ee beledweyne inta idinka maqan inaad gaarsiisaan in maxkamad furanta saacadda lagu dhawaaqay anigu ma joogin iyo anigu ma maqal iyo dhibkaan waa ka horeeyay maxkamadda hadduu ka horeeyay maxkamadda la horkeenay hadduusan hore u dhammaan inaad intaa ku wargelisaan ummadda inteeda kale inaad u caqli celisaan dad islaam ahaan nahay inaan u hoggaansanno diinteenna iyo shareecadeenna oo aan maxkamadda hortagno ku kala baxno maxkamadda ayaduna kala saarto haddaad qaldan tahay iyo haddii laga qaldan yahay intaba annagu ka maamul ahaan waxaan garab istaagaynaa maxkamadda waxaan awood kasta dul dhigaynaa inay maxkamadda awaamirteeda inay fusho walaalayaal marka maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin aan u soo istaagnay inaan xaqii ka wada shaqayno waa maalin aan rabno inuu ummaddan inay mugdigii iyo dulmigii ay uga baxdo iyo cadaalad darradii ay kala tirsanaysay waayadan oo idil iyo maxkamad loo dacwoodo ma lahadi inay meesha ku dhamaato ayaan rajaynayaa hadduu ilaahay yidhaahdo howluhu waa badan yihiin cadaalad samaynta ayaan sii wadi doonnaa oo ka shaqayn doonnaa dhallinyarada inaan shaqo u abuurnaan wadi doonnaa ka shaqayn doonnaa waxaan ka shaqayn doonnaa waddooyinka inaan idiin hagaajinno biyo nadiifa saad u heli lahaydeen inaan ka shaqayno inaan ilmihiinna waxbarasho say u heli lahayn inaan ka shaqayno inaan caafimaadka hooyada foosha ah inay gurma degdega heli karto inaan ka shaqayno ayaan rabnaa waxaanan kaga shaqayn karnaa markaad adinku u istaagtaan inaad maamulkiinna iyo dowladdiinna inaad la shaqaysaan waxaad kula shaqayn kartaan adoo shaqadaada wata la shaqayn kartaa midna ogow haddaad dowladda la shaqayso dowladduna ummadday u shaqaysaa adiguna ajir iyo xasanaada kuugu jira sababtoo ah waddadan in la nadiifiyaa la rabaa dowladdu intaasay ka shaqaynaysaa mar haddaad tidhaahdo waddada ha lala nadiifiyo dowladda oo aan garab istaagno aan soconno adiguna khayrkii ayaad dhinacaada ka leedahay adood howlaha haydna adinkoo wata ganacsigiinni danihiinni gaarka ah kulli adinkoo ka shaqaysanaya yaanan qodob laydin soo marsiinin oo ah dowladda waxeeda ma oggolaanayn ninkii idin yidhaahdaa waxa waaye nin idin yidhi ummadda in loo adeego ma oggolaanayn ma raba inaan warka idinku sii badiyo maantoo idil waa wada hadli karnaa waxaan u rajaynayaa shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan guul ayaan u rajaynayaa annagana waxaan noo ballanaa cadaalad waxaan idin leeyahay guulaysta 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 waxaan idin leeyahay hoggaansama booliska u hoggaansama maxkamadda u hoggaansama maamulka u hoggaansama waxaanan idin soo gaarsiin doonaa heer aad la xisaabtantaan ayagana oo maxaad qabatay maxaad keentay maxaad haysaa aad tidhaahdaan wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat